بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد walaalayaal halkan waxaan kaga soo gudbin doonaa dhacdo dhab ah oo xaqiiqa oo aad u murugo badan looguna magac daray meydkii ninka nool dilay. dhacdadan ayaa waxaa warinaya oday ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed waxa uuna leeyahay waxa ii xaqiijiyay dad odayaal ah oo aan been ku tuhmin waxayna ka dhacday deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya. haddaba anagoo rajaynayno in lagu cibro qaato ulana jeedna in dadka dulmiga wada ay ka waana qaataan kana baqaan argoosiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaasuna ka fogeyn inta aan aakhira la gaarin adduunkana la isku soo dejinayo ciqaabta aakhirana ay qofka sugayso hadduu uu dulmiga falo. rasuulkeena nabadgelyo in naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri ka baqa baryada dulmanaha ah lianna maxaa yeelay وما دحي إلهي قفك دلمناها بريهيسا وحداها. الظلم الظلم وما أدراك ما الظلم. dagaaladii duufaanta colaadeed sitay markii ay ku habsadeen dalka Soomaaliya dariskii isdooxay walaalo islaayay qofba qofku ka xoog badan yahay midida ka aslay ayuu Cabdullaahi ka qaxay magaalada Muqdisho wuxuuna u qaxay deegaanka ay beeshiisu degnayd oo uu door biday inuu ku badbaadi karo maadaama waxa la isku dilayo ay qabyaalad ku saleysneed. muddo ayuu deegaanka beeshiisii ku noolaa isagoo intaa wararka iyo waayaha deegaankii uu ka soo qaxay aanu sheegayn. waxa uu had iyo goor safarleyda weydiin jiray Muqdisho iyo nawaaxigeeda Janaale inay soo mareen iyo in kale wuxuuna ka wareysan jiray hantidiisii maguuraanka ahayd ee uu lafihiisa ku soo tabcay kana soo cararay. hantidaas oo aad u raadin jiray warkeeda waxay ahayd beer ama bustaan sidaad u taqaantid oo uu ku lahaa deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose oo aad u jeclaay. wuxuu Cabdullaahi sidaas ahaadaba maalin dambe ayuu maqlay in nin kale beertiisii qaatay oo uu sidoo doono ugu tagrifaglo la jecla ka ahaataya ama tiisi dhamaataya. wuxuu Cabdullaahi ka soo socdaalay meeshii uu joogay una soo socdaalay deegaanka Janaale oo ah meeshii uu ka cararay Cabdullaahi dhowr bilood ka hor isagoo ay niyadiisii ay ku jirto cabsidii uu dhowr bilood ka hor ka qaxay inay haatan yaraatay maadaama qolyihii uu ka soo qaxay haatan ay dhexdooda colaad ka dhex jirto oo ka xun midii hore uu Cabdullaahi ka soo qaxay. wuxuu soo socdaba maalintii dambe ayuu isoo dhex taagay beertii uu sanooyin badan tabcayay hantidiisa iyo xooggiisana ay galeen oo uu nin kale qori la dhex taagan yahay. laysa salaan war maxaad ahayd lagu yiri Cabdullaahi wuxuu yiri ninkii beerta lahay baan ahay. hadal waxaa loogu soo gabagabeeyay haddaadan niyahow beertaan dhaafin qorigan aan sito 30 xabadood ayaan kugu dhameynayaa. Cabdullaahi intay cabsi gashay ayuu magaaladii dib ugu noqday si uu odayaasha iyo waxgaradka magaalada dhibtiisa ugu bandhigo maadaama uu ahaa nin magaalada laga yaqaan muddo badanna beertan beeran jiray laguna yaqaan nin xalaal quudata ah cibaadana badan. waxay odayaashii garta rogrogaanba odayaashii iyo waxgaradkii magaalada waxay soo jeediyeen in ninka hadda beerta haysta loo tago isla markaana lagu qanciyo inuu ninka beerta iska lahaa uu qayb ka mid ah u ogolaado si uu isna qayb u beerto. arrintii ayaa waxaa loola tagay ninkii xooga ku haystay beerta wax la wada murmaba ninkii wuxuu ogolaaday inuu qayb ka siiyo beerta ninkii lahaa loo kala sooc labadoodii beerta soohdina loo yeel xuduudna loo yeel lana yiri hebelow qaybtaan baa leedahay hebelow adna qaybtaan baa leedahay nin walbana qaybtiisii beeray. muddo ayaa meeshii la wada joogay nin walba qaybtiisii beeray. markii ay gaartay xilligii laga sugayay inuu dalaga ka soo baxo beerta ayaa waxaa dhacday
in ninkii beerta iska lahaa ee cabdullaahi ee beertiisii si fiican ugu baxday in ninkii kale ee xoogga ku haystay beertana inay baxda iska daayay xitaa haramo ama dalag yar uusan ka soo bixin taasoo tusaale ugu filan qofka dulmiga wada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون kuwa aayadaheena beeniya waxaan ugu imaanaynaa meel aysan filayn ninka beerta xoogga ku haystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tusay inuusan waxaan uu ku jiro ay tahay xaq darro uuna dulmi uu ku jiro dhex fadhiyo laakiin wuu ku cibro qaadan waayey oo hoshiisii buu iska sii watay ninkii xoogga beerta ku haystay caqligiisii wuxuu tusay in ninka beerta iska lahaa ee markii hore cabdullaahi inuu sixray ama uu faal u dhigay maadaama dhinacii beertii asaga uu qaatay ee xoog uu ku qaatay ee bixi weysay qaybtii cabdullaahina ay si fiican u baxday ninkii beerta xoogga ku haystay asagoosan xagga eegin ayuu qorigiisii cabbaystay wuxuuna baas ku kala jeexay cabdullaahi oo ah ninkii beerta lahaa isagoo ku qaylinaya waad isixirtay soo ma ahan adna ma noolaanaysid dhimo baas ayuuna ku jeexay halkii ayaana cabdullaahi meedkiisii dadka ku soo shamuumeen sidii isagoo deero dilay ama xayawaan aan naf lahayn ayuu meeshii ka laafiyooday ninkii beerta xoogga ku haystay rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi لما اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ka baqa dulmiga maxaa yeelay waa mugdiyaasha maalinta yowmalqiyaamo sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون eebe ma hilmaamsana waxa ay suubinayaan dadka daalimiinta ah ama dadka dulmiga falaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hilmaamsana xabadda dhacday markay xabadihii yeereen ayaa dadkii deegaanka isku soo baxeen iyagoona ka soo warjeriyey beerta lagu dilay cabdullaahi dadkii ayaa waxay arkeen ninkii beerta iska lahaa ee cabdullaahi oo dhex yaala beertaas isagoo meed ah laysku qaylo dhaami meeshii layskugu soo shamuum waxaa la damcay in meedka la qaado mise dhulkaba lagama rujin karo si kastaba la yidhi loo taag waana laga quustay in la qaado raggii ama dadkii meesha iskugu yimid tala ayaa ku caddaatay waxaana lays yidhi maxaynu yeelnaa maxaynu ka suubinaa meedka maadaama dhulka laga fujin la'yahay iyadoo la rafaadsan yahay dadkuna ay aad ula wareersan yihiin arrinta dhacday ayaa odayaasha ka mid ah ku taliyey in ninkii dilay ninka meedka ah loo yeero saasna uu meedka ku qaado oo la yidhaahdo kaalanana aas meedka maadaama dhulka laga qaadi waayey waxaa la aaday ninkii ninka dilay oo gurigiisa jooga oo wax cabsi ama dhiilo colaadeed aana qabin waana loo tegay waxaana lagu yidhi nin yahow ninkii aad dishay dhulka waa laga fujin waayey ee kaalay oo nala qaad meedka ninkii ayaa si quursi ah u fiiriyey dadkii u yimid kuna yidhi waryaadhahaye waxaad sheegaaseen waa maxay ma waxaad i leedihiin meed baa dhulka laga qaadi waayey ma arrintaas baa arrin rag loola yimaada dadkii ayaa ku yidhi kaalayo adigaba nala arag waa uu oggolaaday waana uu soo baxay dadkii ayaa is soo raaceen waxaa la yimaaday meeshii uu meedka yaalay meedkii ayuu qabtay waana uu soo qaaday waxa uuna yidhi ma waxaanaad qaadi weyseen oo aniga keligay baa qaadaya meedka ma waxaan baad qaadi weyseen dadkii ayaa ku yidhi oo ha naga tegin ilaa aan ka duugayno meedkii ayaa la dhaqay waana la kafray waa la kafnay waxaana la geeyey meeshii lagu aasi lahaa janaasadii ayaa lagu tukaday meedkii ayaa dhulka haddana laga qaadi waayey cid aan asaga ahayn oo ah ninkii dilay oo qaadi karta ayaa meedkii la waayey dadkii ayaa ku yidhi waxaad suubisaa meedka soo qaad xabaashana gal ninkii xabaashii ayuu u dhaadhacay wuxuuna yidhi meedka ii soo dhiiba waana loo dhiibay meedkii wuxuu maagay ninkii dilay ninka meedka ah inuu iilka dhigo ama uu madaxa u dhigo meedka ama dhulka u dhigo
qabrigiisa. laakiin maxaa dhacay? mise meedkii iyo gacmihiisii ayaaba dhulka ku dhegay. geesinimadii markii hore ku jirtay ninkii dilay ninka ayaa intuu iska waayay ayuu af labadii yeeray. war meedka waa igu dhegan yahay iga furfuraay. war meedka waa igu dhegan yahay iga furfuraay. war yaa muslinay war iga furfuraay ayuu ku qeeliyey. rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ilaahay subxaana wa tacaala wuu u kaadiyaa daalimiinta, hadduu qabtana ma sii daayo. dadkii xabaasha dul taagnaa markay arkeen rafashada ninka iyo qeylidiisa ayay ka saseen, wayna kala carareen. nin walbana wuxuu qabtay meeshii uu ka imaaday. ninkii meydka ku dhegnaa markuu arkay inay dadkii ka kala cararayaan ayuu qeylo afkii sii yeeray: war xaagaad iga cararaysaan? war miyeedan muslin ahayn? yaa muslin ahay? war yaa idin aaway? war intay iga cararaysaan? war iima jeediin miyaa? warkiibaa si dab coos qabsadoo kale magaaladii u xulay. labadii qof ee isla istaagtaba waxay ka sheekeynayaan arrinta dhacday. waxay ahayd xilli casir liiq ah ama galabgaab ah. nin walbana cabsi darteed ayuu xabaashii dib ugu noqon waayey. waxay talo iskagu soo biyo shubatay in marka waagu uu baryo laga war doono. waagii baa baryey. maalinnimadii dambe barqo dheer ayay noqotay. dadkii magaalada ayaa ku ballamay inay ka war doonaan meydkii iyo ninkii xabaasha ku dhex qaylinayay. waxay arrintooda ku dambaysay wax la socdaba goor dambe ayaa xabaashii la isdul taagay. laakiin maxaa la arkay? afka ayaa gacanta la wada saartay. waxaa la arkay ninkii kale ee dhulka uu ku dhegay asna uu dhintay. alla wuuba ka hooseeyaa. talow sidee wax u dhaceen? ilaahow cilmigiisu badana gardaradu ku dilaayo isna god la gal ayay ku hadaaqeen dadkii meesha iskugu soo xoomay. qof walba wixii maskaxdiisa ku soo dhacday markii uu ku celceliyey, lana arkay in ninkii shalay qaylinayay ee baaska ku kala jeexay cabdullaahi uu xataa ka sarreeyo qaabka meedka marka loo dhigayo. labadoodii markay isku dhegeen uu soo sarra maray ninkii cabdullaahi ahay, ninkii dilayna uu hoos maray. weliba cabdullaahi waa la kafnay, waana la dhaqay meedkiisa, janaasana waa lagu tukaday. laakiin ninkii cabdullaahi dilay ee xoogga ku haystay beerta lamana kafnin, lamana dhaqin, lagumana dukan. dadkii meesha joogay iskumaysan dayin inay dhaqaan ama kafnaan ninkii daalimka ahay oo waaba ninka geesiga ah oo intuu qabriga u dhaadhaco kasoo kala fujin kara labada qof ee meydka ah. waa kii la dilay oo cabdullaahi ah iyo kii wax dilay ee daalimka ahaa ee beerta xoogga ku haystay. oday ka mid a odayaashii meydka soo dul istaagay ayaa wuxuu ku taliyey markuu arkay xaaladda inay aad iyo aad u cakiran tahay, talo faraha ka baxday, dadkuna ay aad iyo aad u buuqsan yihiin, in labadooda sidooda eeko ah la ysku aaso. sidiina ayay dadkii suubiyeen, labadoodiina waa la ysku aasay. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. waxay ogaan doonaan kuwii dulmiga suubiyey soo noqoshada ay noo soo noqdaan maalinka yowmulqiyaamo.